Jadiga rurtayo hadii adi raacso rajo waan ka qabaa. kulanti xiiso leh akhyaarta hawada nagala socda ay ku soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijyada xiisaha badnaa aad kala socon jirteen caasimada Jannale. maantana waxaanu ka hadlaynaa qofka aad jeceshahay iyo waliba sida aad u soo jiidan lahayd. haddaba maxaad samaynaysaa? maxaad dareentaa marka aad daawanayso filimada aad dhowr jeer hore daawatay? waxa hubaala inaad dareemaysid caajis iyo waliba marax aad u fara badan. laakiin su'aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay maxaan u dareennaa caajiskaasi marka aynu daawanayno filimada in ka badan hal mar? sababtoo ah waxaynu ognahay wax kasta oo filimka ku jira sida ay wax u dhici doonaan, waxa socda iyo wax kasta oo filimka ka mid ah. sidaas daraaddeed waxaa meesha ka baxaya xiisihii aynu u qabnay filimkaasi daawashadiisa. marka aynu ka hadlayno soo jiidashada, isla arrintan oo kale ayaa dhacda, waxaana aad u yar inay dadku ay soo jiitaan dadka la saadaalin karo. sababtoo ah waxaa loo tixgeliyaa dadka madaxa ah xagga dadka aan la saadaalin karin ay xoojinayaan soo jiidashada ayna sababaan dareen jacayl. waa maxay xiriirka ka dhexeeya soo jiidashada waxa aan la saadaalin karin iyo maskaxda? soo jiidashadu waa si aad u qabsan lahayd qayb ka mid ah fikirka qofka. marka aad qofka cajab geliso sida aad tahay ee aad qabsato qayb ka mid ah fikirkiisa, waxaa kuu fududaanaysa inaad ku hogaamiso tallaabada xigto oo ah in qofka uu wax badan ka fakiro. haddii aad doonayso inaad soo jiidato qofka aad jeceshahay, waa inaad noqotaa qof aan la saadaalin karin, islamarkaasina waa inaad qofka siisaa xog maskaxdiisa ku reebta malihiisa. gaar ahaanshaha iyo soo jiidashada, waxaad og tahay in aad wax badan aad ku kala duwan tihiin dadka kale, dadka kalena ay wax badan ay kaaga duwan yihiin. iyadoo sidaas ah ayaa haddana waxa ay dadka badankoodu ay ku guuldaraystaan inay u soo bandhigaan dadka kale waxa gaarka ah. waxa ay u labistaan sida dadka kale, waxay u hadlaan sida dadka kale, islamarkaasina waxa ay raacaan wadada dadka kale ay raaceen. si aad u hanato maskaxda qofka aad jeceshahay, waxaad u baahan tahay inaad noqoto qof ka duwan dadka kale, kana gaar ah oo aan la nooc ahayn dadka kale. soo jiidashadu waxa ay bilaabanaysaa inaad qabsato dareenka qofka kale. marka waxa aad qabsataa qofka dareenkiisa, waxaad awood u yeelanaysaa in ay tusto sifooyinkaaga kale ee aad sare u qaado xiisaha uu ku qabo qofkaasi. dadku waxa ay maalin walba ay arkaan amaba ay maqlaan waxyaabo badan, balse waxa kaliya ay ku reebta xusuusta waa marka ay arkaan wax ka duwan wixii ay maalin walba arki jireen. ka waran haddii aad aragto gaari duulaya, waxaan filayaa in aadan weli arkin, laakiin ka waran haddii aad arki lahayd wax badan oo aad xasuusan lahayd. waxa aad la yaabi lahayd meesha uu ka yimid, cidda samaysay, waxa aad u warrami lahayd saaxiibadaada, asxaabtaada. tani waxaa la mid ah soo jiidashada ilaa aad u muuqato gaari duulaya oo la siin maayo wax dareen ah. xiisagelinta qofka aad jeceshahay, marka aad ku guulaysato inaad qabsato dareenka qofka aad jeceshahay, waxa aad qaadaysaa tallaabada xigta oo ah in aad soo bandhigto sifooyinka ugu fiican, sida daahsoon aan toos ahayn, sida aad u xiiso geliso qofkaasi. dadku ma jecla dadka istustuska ah, waxa uuna door bidaa inay iyagu ogaadaan sifooyinka fiican aad leedahay. ha isku bandhigin si toos ah, hana isku caddayn dadka waxaad tahay iyo wanaaggaada. waxaad u sheegtaa si mildahan, waxaadna siisaa oo keliya tilmaamo una dhaaf, iyaga ayaa ogaanaya inta kale. marka uu qofku noqdo mid kula dhacsan ka helay, waxaad bilowdaa inaad badanaa aad u tagto ilaa iyo inta uu la qabsanayo joogistaada. intaasi kadibna si kadisa uga maqnaataa dhowr cisho. haddii uu bilowdo in uu ku xiiso hambalyo, waxaad si buuxda ugu guulaysatay inaad soo jiidatid qofkaasi. gudahaan dhegeystayaal, intaasaynu ku soo afjareynaa xubintii sida aad u soo jiidan lahayd qofka aad jeceshahay. waxaadna kala socoteen caasimada Jannal. dhegeystayaasha nagu cusub waxaan ku codsanaynaa inay subscribe ay saaraan Jannalka si ay ula socdaan sheekooyinkeena kale ee markaasi xiisaha badan. jadiga rurtayo hadii aad raacso rajo waan ka qabaa.